marka mar baad soronaysaa dadka maskaxda ka horeeyaaba ee garashada dheerba malaa fanaaniintii ku jiraanba tarbay sukeen qoray adna wali ma daadani rahmaan rahiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahad iska leh iga raali hada argabaaxaya waa yar xabaabsanahay ugu horeyn waxaan u mahadnaqayaa saamiya sida kale haddaan idinku sheego waxaa dhalay fanaankeenii caanka ahaa maxamed cali burco dhakhtar bay sukeen qoray adna weli ma daadanin iyo rooble waxay walaalayihiin isna fanaan caana saxardiid maxamed saxardiid bay walaalayihiin markaa mar baad soronaysaa dadka maskaxda ka horeeyaaba ee garashada dheerba malaa fanaaniintii ku jiraanba halka waxaa fadhiya oan indhahaygu imika arkeen ayaan cashuur waa inan qaaliya dadkan hortoodaan uga mahadnaqayaa tiraba 3 jeer ayay dalka dibaddiisa ay ii suurto gelisay Soomaali week 2 jeer bay igu casantay marna ilaa Sweden walaal waad mahadsan tahay waa qof qaaliya meel weyn bay ku jirtaa oo bulsho badan oo Somaliland iyo Soomaali bay qaadaa dibadday geysaa halkaas qof buugsita qof heesaya aad bay u caawisaa fanaanku isagoo aan waxba haysan buu tagaa isagoo kaashista buu soo noqdaa ayaa waad mahadsantahay halkan waxaa fadhida hodan aynu daawanaynay rabadaantii dee filinkii damac halkaa ka wadbanu leenahay waxaan aad ugu mahadnaqayaa ammaan u salaamayaa wasiir ku-xigeenka dhalinyarada ee ciyaaraha iyo madaxdii halkan iga sii horreysay dhammaantiinba waxaan leeyahay aad baa u mahadsantihiin buuggaygan mucjisada fanka qarniga 21aad waxaa ku qoran heesuu sameeyey allah u naxariistee haddeer baxaysay abwaankeenii afguriye teedhiinkii bay qisadaasi dhacday qisadu way dheer tahay waxay ku qoran tahay buugga oo xaaladdaa halkaasaad ka dareemaysaan waan jeclaan lahaa inaa akhridaan anigoon buugga dee ku xayeysiinayn laakiin waa qiso muhiimo anigu wacyigelinta ama aan ku heeso ama aan hadal ku tiriye dee waqti hore baan bilaabay marka saamiye rooblena waan u mahadnaqayaa dhammaantiin waxaan leeyahay aad baa u mahadsantiin warahmatullaahi wabarakaatu madaxda ka socota wasaaradda waxbarashada wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha agaasimaha guud saaxiibka IBK walaasha ayaan cashuur oo ka mid ah dadka runtii aan aadka u tixgeliyo iyo dhammaan hablaha asrafta leh iyo Lifeline Hope groupka soo abaabulay aad iyo aad baan u salaamayaa autism awareness markaan ka hadlano autism awareness runtii dadka baahiyaha gaarka ah leh waxyaalaha ay u baahan yihiin maanta halkan kuma soo koobi karno dadka qurbaha jooga ee autism-ka qaba waa dad xuquuqdoodii oo dhammaystiran haysta waa dad shaqadoodii haysta xilli aan ka shaqayn jiray qurbaha dalka Sweden dad autism ah oo shaqaysta oo waqtigoodii ku xisaabtamaya oo waxay qabanayeen garanaya oo halka ay u hurdo tagayaan iyo halka ay tagayaan iyo xilliga rawaxayaan garanaya ayaan runtii la shaqayn jiray maanta dadka baahida gaarka ah ee dalkeena markay noqoto wuxuunbaa hooyada culayska ku dhaca waxa weeye waxay ku kaliyeysataa waxyaalo fara badan oo laga caawin lahaa ma jiro iskuul waxbarasho ama uu yar yahay haddii uu furan yahay oo dadka autism-ka ah runtii ay wax ka bartaan waxaan xasuustaa Hargeysa mar waxa ka furnaan jiray Hargeysa School of Special Needs waa loo soo daawaysan jiray hooyadu inay ku dhacdo inay ilmaheeda banaanka keento
oo ay caddayso wuxuu u baahan yahay waa aad iyo aad bay u adagtay dalkeena markay noqoto sida ay samsam sheegaysay waa lala khatilaya guryaha lagu haynayaa adduunka maanta haddaynu eegno dadka ugu caansan ee autismku ku dhacay waxaa ka mid ahaa ciyaaryahanka weyn ee axsan laacib fil caalam noqday Messi oo kale autism xanuunka autismka ayuu qabay akademiyad buu ku jiray waxbuu baranayay autismka qofku ku nagaan maayo inuu weligiis ahaado laakiin horumar qofku gaari karaa ninka maanta adduunka ugu maalqabeynsan ay wada aragtaanba autismku soo maray haddaba wasaaradda dhalinyarta ee ciyaaraha ee aan mas'uulka ka ahay xiriir fiican baan la leenahay dadka baahiyaha gaarka qaba tartan baan u qabanay dhawaan dadka maqalka naafada ka ah oo runtii aan tartamo hore aan loo qaban jirin ama aan lagu xisaabtami jirin ayaan tartamo u qabanay waxaa jirtay xili ay tageen dalka Kenya oo dadka maqalka naafada leh ay ku ciyaareen magaca Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa markii ugu horeysay intii Soomaaliland jirtay koox maqalka naafada ka ah inay tagto dalka Kenya iyadoo matalasa Soomaaliland oo ay magaca ku ciyaarto dhalinyartii xilligaas samaysay maanta waxay xaq u leeyihiin in mushaaraadkoodii qaataan wasaaradda dhalinyarta ee ciyaaraha way ka shaqeeyaan turjumaanay ka yihiin si caadiya ayay u soo shaqo galaan haddaba inaga maxaa inoo yaala in la dhiirigeliyo cid walba oo ka shaqaynaysa inay helaan dadka baahiyaha gaarka leh waxay xaq u lahaayeen dadkeena waxaad ku arkaysaa horta anaga xukuumadda wada jiriya wax qabad ee Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi uu ugu hogaaminayo way naga go'an tahay inaanu la shaqayno inaanu wixii awoodeyda aanu la qabanno taa waxa ku cadaynaysa wasiirkii ugu cuslaa ee arrimaha gudaha ayaa ka soo qayb galay xafladan maanta aynu dadka autismka aynu kaga hadlayno taasi waxay cadaynaysaa inaanu diyaar u nahay inaanu la shaqayno dadka autismka walaalayaal sidee baynu haddaba ula shaqaynaa waxa loola shaqaynayaa in groupkan maanta soo qabaqaabiyey Lifeline Hope runtii la dhiirigeliyo in la helo dad saas oo kala oo iyaguna wax dhiirigeliya dadka maanta halkan jooga waxaan aaminsanahay inaan qiyaastooda la qiyaasi karin tiradoodu intay leegtahay waayo inooma tiri koobna lama macaamilno waynu caynaa yacni hooyadu way la gabanaysaa inay guriga joogto bari baa jaamacow Dr. Cumar Cilmi Duxood ergeyga ictiraaflaanta Somaliland ayaa toramada dadka xanuunsanaya ka daweyn jiray waxa uu yiri Soomaalidu inay qofkii caawiyaan iska daayay qofkii waxa ku caayay dhibaatadii haysatay adigoo doctor buuli oo Dr. Cumar Cilmi Duxood oo ergeyga ictiraaflaanta Somaliland ayaa la walayaa buuli Cumar in doole qofkii marka niyad jab baa ku dhacaya qofkii inaan la oran hebel curyaano inaan naanayso xun loo bixin la dhiirigeliyo ayaa fiican waxaan halka ka balan qaadayaa wasaaradda dhalinyarta iyo ciyaaraha inaan diyaar u nahay in wixii qaybtayada ah hadday noqoto in tartan loo dhigo hadday noqoto in la maaweeliyo hadday noqoto in qaybta BE-ga ama jimicsiga la siiyo wasaaradda dhalinyarta iyo ciyaaruhu waa ku diyaar line up iyo Samsung groupkeedana waxa leenahay waa muhiim doontaan haddii la haydo runtii agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarta ee ciyaaraha isaguna wuu joogaa wasaaradda dhalinyarta ee ciyaaraha waxa hoos yimaada kubadda uu maaha waa cid walba oo dhalinyara oo tiisamka waxaan jecelahay markii ugu horeysay Somaliland inay qayb ka mid ah wasaaradda ay noqoto Samsung iyo groupka soo qabaqaabiyay aad iyo aad baan walaalidii salaamaya waan dareemayaa Samsung iyo hooyo oo tiisam haysataa culayska ay leedahay baan dareemayaa laakiin culayska maanta ilmaha buu ka badbaaday ee maanta uu ku shaqaysanayo ee maanta uu gurigiisa ku tagayo ee maanta uu albaabkiisa iyo telefoonkiisa iyo habsami socodkiisa oo haysto malaayiin baa jira maanta hargeysa guryaha ku xaraysan sidii aynu kuwa u soo xoreyn lahayn aynu ka soo saari lahayn fulgooda qabanno aad iyo aad baan idin salaamayaa saaxiibkay jaamac aad iyo aad baan saaxiibku salaamayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi